inta uusan dhiman ka hor ayaa la tusay geeridiisa waxa uuna maalmihii la soo dhaafay qaar ka mid a saaxiibadiisa iyo eheladiisa ka codsanayay in la iska cafiyo qofka aan ka hadlayo waa allaha u naxariistay marxuum maxamuud dhagacade oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada maamulka Puntland oo saaka ku geeriyooday deegaanka Calmiskaad kadib dagaal xooggan oo dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Daacish maxamuud dhagacade ayaa deegaan ahaan ka soo jeeday waqooyiga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxa uuna mar ka mid ahaa marxuumku shaqaalaha dawladda hoose ee gobolka Mudug qaybta Puntland isaga oo dhawaan isku sharaxay xubin golo deegaan balse aanu ku guulaysan taliye maxamuud dhagacade dadka sida gaarka u yaqaanay ayaa ku sifeeyay shakhsi cibaado badan oo afgaaban lagana ammaan heli jiray waxa uuna ka mid ahaa saraakiisha lafdhabarta u ahayd dagaalka ka soconaya buraleyda bari ee Puntland mid ka mid ah saaxiibadiisii gaarka ahaa oo ay iskala tirsanaayeen ciidamada difaaca Puntland ayaa sheegay in toddobaadyadii la soo dhaafay uu marxuumku sheeganayay xanuun isla markaana uu muujinayay quus sida qof loo soo sheegay geeridiisa waxa uuna cafis ka dalbanayay dhammaan dadka ka agdhow ururka Daacish ayaa muddooyinkii dambe si gaar ah u bartilmaameedsanayay saraakiisha ugu firfircoon howlgalka Hilaac waxaana laga cabsi qabaa in kooxdu ay sirdoon xoogan ku dhex leedahay gudaha hay'adaha amniga Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa horey wacd ugu maray in kooxda laga soo afjari doono buraleyda bari ee Puntland gaar ahaan buraha Calmiskaadka iyo Galgala kooxda Daacish ayaa muddooyinkii dambe waxa ay laba jibaartay howlgalkeeda ka soconaya buraleyda bari ee Puntland iyadoo howlgallo kala duwan ka qorshaysay deegaanada Calmiskaadka waxa ayna fuliyeen toddobaadyadii la soo dhaafay dhowr miino iyo sidoo kale weeraro jidgal ah iyagoo weeraradaasi inta badan ka dhacay buraleyda Calmiskaadka gaar ahaan deegaanada bari kooxda Daacish ayaa ku dhaqmaysa ficilo aad u foolxun kuwaas oo ay ka mid yihiin sumaynta ilabiyoodyada iyo barkadaha ku yaala deegaanada Calmiskaadka sidoo kale waxa ay kooxda Daacish sameynaysaa jidgallo kuwa oo lala eeganayo saraakiisha ciidamada Puntland iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ay miinadu saameysay ciidamada Daacish ee ku sugan dhulka buraleyda Puntland ayaa laba jibaaray howlgalladooda dagaal kadib markii bilihii la soo dhaafay la weeqay awoodooda ku aadan dagaalka ka soconaya deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka bari Daacishta Puntland ayaa wacad ku martay in ay wadi doonto ugaarsiga iyo laynta saraakiisha muhiimka u ah Puntland si ay ugu hungoobaan Puntland howlgalka Hilaac kaas oo ah howlgalkii ugu xooganaa ee Puntland ay ku soo afmeerayso ururka Daacish iyo kooxaha nabadiidka ah ee ka dagaalama buraleyda saaran gobolka Highland gaar ahaan bari dhimashada taliye maxamed dhagacade ayaa ka dhigan in ururka Daacish uu bartilmaameedyo xoogan ku sameynayo ciidamada sida gaarka ah loo eeganayo ee Puntland kuwa oo ka mid ah fooraadka dagaalka ka soconaya dhulka buraleyda ah ee Puntland